qisadii igu cajibka waxay qisadii Talyaaniga ugu qabsatay naag Soomaaliyeed ah oo 4 nin qabtamay mise iyagoo ay qabaan 4 ay qabaan mid Denmark degan mid London degan iyo 2 Talyaaniga degan bal habaar qabto sidee bay u kala ilaalin jirtay markii aanu wareysanay waxaan ogaanay inay sanado sidaa ku waday xaggana ay ka dhureysay xaggana ay ka dhureysay xaggana ay ka dhureysay xaggana ay ka dhureysay lacagtu dhinac walba kaga socotay raggana ay kala farsamayn jirtay ilaahay muxuu qadaray markuu ilaahay wax fashilinayo oo agooni labadii baa diyaarad isugu yimi kii Denmark ka soo duulay iyo kii London ka soo duulay way iswareysteenun wariga xageed ku socotaayo xageed ku socotaayo nin wali wuxuu leeyahay gabadhaydii baan ku socdaa goor meesha ku qabaayo waa kano mid kalena halkan kana Denmark mid ugu aasantay kana mid London ugu aasan tanina way qarsoontay guurka qarinta guurku dhibkaasay leedahay siday u wada fadhiyeen ba telefoon baa soo dhacay waana isnac fadhiyaan telefonkii waxa ka soo booday telefoonada nimanka smartka bay ahaayeen dan ka hadal ma aha kii Sheekh Cabdirashiid sheegay ma ku ilaab salaaxa qof markuu soo hadlo waxa soo booday sawirkiisa soo maaha sawirkeedii waa soo booday bul kii kalena ishiisa way ku dhacday warstay wax u jiraan buu waa ya gabadhan kula soo hadlaysa waa xaaskaygii xaaskaagii baa ha yaana waa xaaskaygii buu war maxaad ku hadlaysaa soo xaaskaagii ma aha ha yaana waa xaaskaygii wuxuu soo saaray sawirkiisna sawirkii uu soo saaray waa la isdhinac dhigay waa isku sawirkii arrintii baan loo keenay bal naagtu dhiiranaanteeda may odhanin arrintu waa labadan uune laba kala jira bay tiri yaa kanaan ilmaha u hayo waa mid oo magaalo kaloo Milaan la yiraahdo joogaa ka kalena magaalo Heblaayo joogaa haye wal isugu wada yeera wixii baan isugu wada yeernay bal waanu wareysanay marka awal waxaanu maqri jirnay un rag wax qarqariye fajicishadii ugu weyneed bay ahayd naag 4 ay qabaan naasida u kala ilaalin jirtay habaar qabtooy waxa jira kan waqti gaaran u yeera kan waqti gaaran u yeera labadan magaalada joogno waqti gaaran aan shaqadiisa u qabta sidaasaan ku waday bayt sidaasaan ku waday ha markaasaan wareysanay midba taariikhdu guursaday dib baan u wareysanay hadda iyo hor leh yaa ala kulli xaal markii dambe kii u horeeyay baan adeerka adunba meherkaagu sax yahay war idinkuna ka huleela na adiguna Ilaahay u toobadkeen dambi aanan weliga iyo maqal noociisa ayaad ku dhacday intaasana kaga baxaya Ilaahay khayrka hayna waafajiyo